بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمها النقينا مرهر مردا بابا allihii nagu manaystay nimcooyin fara badan ay ugu horeysay nimcada islaam wal iimaan in nimcooyin ka fara badan oo aan koobi karin soo Allah noo sheegay waa inta cudo nicmatullaahi la tuhsuha hadaad maagtaan inaad tirisaan nimcooyinkan ku galadaystay ma koobi kartaan oo ma tirin kartaan. midaas awgeed baa marka Allah wuxuu mudan yahay markasta in loo mahad celiyo asaa mustaxiq oo mudan keligii in loo mahad celiyo. Allahas ayaan mar hore mar dambaba ayaan u mahad celinayna. ثانيا Allah subhanahu wa ta'ala ayadaas wuxuu nagu hadlayaa dadka muuminiinta inay ka baqaan. markay ka baqaana faa'iidada ay helayaan markay Allah ka baqaan waxidaan cibaadadiisa uu xaq u leeyahay ay kaligiisiyaan Allah subhanahu wa ta'ala waxa ay ka faa'iidayaan baqdintaas na waa way ku jirtaa oo ayadaas baa tilmaamaya. marka taqwada Ilaahay subhanahu wa ta'ala in laga baqo maxaarimtiisa waxay ka kooban tahay in wixii Allah subhanahu wa ta'ala ka reebay oo maxaarimtiisa aad ka harto wixii lagu amrayna alla imaato. Allah subhanahu wa ta'ala ayadaas wuxuu leeyahay: yaa ayuha alladina aamanu kuwa xaq rumeeyo Ilaahay ka baqa cabsidiisa midda ugu xaqnimada badan Allah ka baqa oo wala tamuutunna illaa wa antum muslimuun hana dhimanina oo hageeriyoonina idinkoon Allah u hogaansanayn. nabiga kaleey salaatu wasalaam yaa la weydiiyo waxa lagu yiri waxyaabaha dadka muuminiinta ama muslimiinta ee jannada ku galaan maxaa ugu badan taqwa Allahi wa husnul khuluq Ilaahay laga baqo iyo akhlaaqda wanaagsan. marka aayadaha looga hadlayo taqwada Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad u farbadin ooga hadlaya ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله اساس ليه عدي الله سيدبا اوغا بقدو meel ayna ka firinin baa laga qoodiyaa markii xaaladda ku adkaatana makaan makhraj buu Ilaahay siyaa ka baxaan. waxa soo dhan markuu xafuro waa Ilaahay keligii in laga baqo waa mid noola keenay jinni iyo insiba adduunka loo keenay oo ah in Allah subhanahu wa ta'ala ay ka baqaan cibaadadiisa ay keligii u waxdiyaan oo u barxtiraan. bab intaas ba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ilaahay saasu leeyahay insi iyo jinni wax kala koomka uma aan keenin. Allah wuxuu leeyahay in keligii caabudaan baan u keenay. sida awgeed waxaan rabaa marka intaas inaan ku soo koobo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay nagu anfaco. waxaan leenahay marka inaan laazimno inaan Allah ka baqno markasta iyo meel kastaba hal meel naga noqon markasta iyo meel kastaba inaan Allah ka baqno waxana leeyahay nafsi shaydaan ay ka ahaadeen waxana siban Ilaahay wa kuma hasan jazaakum Allah khayran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.